walaalkay Baakaay iyo walaalkay Cabdullaahi Barre labadaba waa soo dhaweeyay hal qodob ay ogaadaan laakiin haddaan xamar joogo iyo haddaan inta joogo in la shaqeynaha ogaadaan waxay iga baahan yihiin 9 saac inay soo kiciyaan ay yiraahdaan waxa kaaga baahan saaxiibkii dalka Soomaaliyeed isla nahay saaxiibna waa nahay walaalana waa nahay saraakiilna waa isla nahay waxaan u soo jeedinaa saaxiibadeen on maanta xilka ku wareejina oo saacadan laga bilaabaan xilka ku wareejiyay adinku sida aniga iyo abaanduuli hore u soo wada shaqeynay isma khilaafin inaan horta iskhilaafina hadii number 1 isla shaqeysan dacar haday ka qaraar tahay nin walba oo qaata ninka kale wuxuu sheego si ay u dhisanto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guutada u dhisanto taliyaha cusub ee guutada sanaada Colonel Maxamuud Xasan Ibrahim Baakaay ayaa sheegay inuu gudan doono waajibaadka xilka loo soo magacaabay haddana inaan dib mar labaad shaqadii guutadan boorka looga jafo oo meeshii ciidan ugu wanaagsanaa aan geyno waa waxyaabaha hadda nolol soo idmaday kamid tahay raggii naga horeeyayna meel fiican ay keeneen annagana meeshaas aan ka sii wadi doonaa annaga waxaanaha mas'uuliyadana saaran oo uu noo soo idmaday taliska xoogga dalka Soomaaliya waa gudanaynaa sida ugu wanaagsan inaan u gudanaan rajaynayna hadii Ilaahay nagu macnaha Ilaahay nala garab galo waxaan leeyahay ragga cusub ee maanta loo magacaabayo taladana shaqa way baan hortaala waxaan saniigu ducaynaa Ilaahay inuu nala qabto faaraxna waxaan u leeyahay hawlo badan waa soo wada qabanay imikana waxaan ku rajaynayaa meeshaas lagu beddelay inay meel khayr qabto ku noqoto waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo amisom hortooda ka ballan qaadaya si qof aadamiya ama governor gobolkan jooga sida ugu wanaagsan oo uu la shaqeyn lahaa inaan idin la shaqeyn doono horena waa u soo wada shaqeynay haddana waa wada shaqeyn doonaa haddii Alla idin waxaan leeyahay iyagana shaqo badan la idin ka rabaa loo u baahna maxaan ku yiraahdaa inaad wax ka bedeshaan oo nala keenay kaliya maahan waa inaad wax ka bedeshaan insha Allah waxa maxaan ku yiraahdaa aan idin leeyahay waad mahadsantihiin ka soo qaybgalayaasha madaxda halkan fadhida iyo dhammaan marti sharaftaba aadaan idin soo dhaweynaa insha Allah barakallahu Allah idin barakeeyo iyagana xilka Allah la garab galo insha Allah